Bismillaahi Raxmaani Raxiim asxaabta sharafta iyo qiimaha leh kusoo dhawaada kanaalka Rungood Media fadlan share dhaha like na saala follow dhaha gaarsiiya asxaabta fadlan booqda YouTube-ka Rungood Media halkan waxaan kusoo koobinaa taariikh nololeedkii gudoomiyihii hore ee maanta geeriyooday Maxamed Maxamuud Raagamos la u naxariiste Maxamed Maxamuud Raagamos wuxuu ku dhashay caasimadda Soomaaliya Muqdisho sanadkii 1973 wuxuu ku barbaaray Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid wuxuuna gaaray degmada Rungood 1994 halkaas u tagay xilligaasi uu ku geeriyooday aabihii Maxamuud Raagamos wuxuuna halkaasi haduu tagay oo gacanta ku qabtay caruurtii aabihii ka geeriyooday maadaama uu cid u weynay wuxuuna halkaasi ku guursaday xaas isagoona halkaasi in badan joogay waxaana dowladii Cabdullaahi Yuusuf ay magacawday gudoomiyaha degmada Rungood ee gobolka Shabeellaha Dhexe idoona warqadda magacaabista la sii marsiiyay maamulkii Maxamed Dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe haystay wuxuuna xilligaasi wax weyn ka qabtay degmada Rungood ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo magacaabisay kadib aan gudoomiyaba tagin wuxuuna dadka deegaanka wax wanaagsan u qabtay maadaama ay dadkii xilligaas isku dhex yaacsanayeen maamul ka jirin wuxuuna halkaasi nidaamiyay dadka isku dhex yaacsanay isagoona howlahaasi si wanaagsan degmada u maamulay waxa halkaasi ku galay maxaakiintii oo halkaas isaga caawiyay balse waxa maxaakiinta ka miimay kooxda Al-Shabaab oo xilligaas dagaal baan kula galay waxayna ka saareen degmada Rungood isagoo laba joor oo kala duwan kusoo jabhadiyay wuxuuna mar laba joor qabsaday sigiikoona kadib awoodda isugu geeyay halkaasna uu isaga cararay wuxuuna diyaarad ka soo raacday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wuxuuna sidaas u caasimadda Soomaaliya Muqdisho wuxuu 10 sano joogay Muqdisho isagoon wax xil ahayn wuxuu mar dhow la sheegay inuu dhaqdhaqaaq bilaabay madaxweynaha Jubbaland oo saaxiib la ahaa uu mar Kismaayo tagay balse aan xogtiisa aan lahayn Sheekh Xuseen Cadow Garcade oo ahaa oo si weyn u yaqaan saaxiib dhowna la ahay ayaa halkan loogu soo koobay taariikhdiisi fadlan ku soo dhawaada asxaabta sharafta leh إن لله ما أخذ وله ما أعطى ولكل عنده بأجل مسمى نظر الله نحرسته محمد محمود راغموس كتابتي سنة من الله كسيو ربنا الله واسعيو نال كيد ربط وإن الله كسيو ننتا كدام بمركان تاريخ جدا كان سلطان كاغا ورمو كسوه عن المقصد ودعيمة وآد jecel yahay oo aad yani maaragtay daciim u ah go-aan leh weliba ku dhaqanka shareecada islaamka jecel buu ahaa allah u naxariisto walahiban allah naga siiyo ninkaas haddaan taariikhdiisa ka xasuusto aan wax kaaga sheego wuxuu dhashay 1973 magaalada Muqdisho ku dhashay isla tan magaalada Muqdisho ayuu ku barbaaray xilli ay tahay aan u malaynayo 1996 ilaa 94 ayaa diidaasay sidaas darteed uu u baadiyo marka aqoontii iyo yani maaragtay meeshaas yani maaragtay isaguna inuu ومن كل وريبل إنه سيد على مرة برباريو أصيّر ماشي كوكسري إلا يو كان نغلو الدنيا تبدأ رمضان دوغا مقعابو هالكا سوق سوقنا كوكا فاويان هل بما تبدأ رمضان هالكا سوق مقعابي وهي لغدا كميدو نفرتي إلا لغدا كميدو هذه الدولة عبد الله يسكو كمدر كاي labada community markii ay yahay waxaan filayaa in maxaakiimta meesha ay ku dagaal ay kula galeen oo meesha dadkii laga qabsaday oo kamid ahaa oo Gaalkacyo ku cararay yaradana ka soo raacay xamarku sidaas way ka dambeeyay labada community xamar oo ku sugnaa marka Maxamed walaalkeen Maxamed Allah u naxariistee weeyaan laba xaas oo ka tegay aan ogahay iyo 24 caruura Allah u naxariisto intuu ka tegayna Allah barakeeyo marka
inaan yani isku dhowna u ahaa ilaa yaraanteennii waxaan kaga siixin oo farsana iga weynaa wuxuu ahaa ragga marka yani maarata ugaadiyey yada aada weyn ahaa oo wata ii rari jirtay oo yani maarata anaad isugu dhadhowday marka adeer intaasaan yani maarata aan ka xusi karaa taariikhdiisa in aad u wanaagsan oo ahaya insha allah. waa tahay xaasaskiisu ma hal meel iska nool yihiin amba waa laba meelood kala duwan ka kula nool yihiin? وهذا يعني ما هو شيء وما أنا شيء توضح كذا كل شيء وهو يعني عروسي كذا كل شيء هذا هو كذا كان لما كان كاسوسا لما وهو يعني حمر بي كذا كذا واحد كذا واجه مرة حلقة سعادة دورشة جبلان waxaan xukumaynaa inuu tagay Kismaayo oo halkaas u tagay arrimo doorashada ah meeshaas wuxuu kala soo kulmay anigu waxa weeyaan Kismaayo aaday waa jirtaa laakiin asbaabtu aaday wuxuu yani maaragtay kala soo kulmay caddaynteeda ma hayo ma garan xiluu haya ma jiraan intoo la dhiman ka hor maya عمرو بصمنا وانا يسكح حنوصنا حنون كان سمرت الإلهي وغضي مكالا دعاي ندرنا وحويان وقت كشيابة دماغو وحويان حنون كلا كسو قرطي intuu gudoomiye ahaa ugu sunay degmada Rugood ee gobolka Shabeellaha Dhexe go'aamadii ugu waaweyn oo qaatay maxaa kamid ah iyo degmada Rugood intuu ku sugnaa waxyaabaha naftay islaax buu qabtay isbaaradii buu wadada ka nadiifiyey dadka musaafirka si nabaday ku maraayeen dadka deegaankana dhexdooda islaax fiican buu yani maaragtay ka dhaniyey nabadaana lagu noolaa intaan aan ka ogahay. waad mahadsantahay. intaas waxaa la jirta inaan la xiriirnay gudoomiyaha hadda degmada Rugood maamul haya macalin Muxudiin maxaa kulmiye wuxuuna noo sheegay inuu hadda diyaar u yahay inuu wareysi u bixiyo saaxiibkii haladu ka yaqaan oo u sheego laakiin howlo mashquul awgeed ayaana ugu noo suurtagal weys saxaabta ku xiran channelka Rugood Media share dhaha like na saala waad mahadsantihiin.